inoo ogolaaday inagoo caafimaad qabna inaynu kulankan isku nimaan mar labaadkana waxaynu mahad celinaynaa waxa weeyaan kullay marka barnaamijkii kulan noocan oo kale la isku imanayo dadku de dhowr nooc bay u qaybsamaan qaar la yiraahdo guests hosts and organizers waa martigeliyayaal iyo abaabuliyaal bay noqonaysaa marka martiduna way mahadsan tahay martigeliyaashina aad bay u mahadsan yihiin qabanqaabiyaashii iyo qoladii waqtiga badan gelisay sidii madashan maanta aynu ku kulmayno ay u noqon lahayd mid xasiloon oo qof kastaaba inta uu joogo uu dareemayo dareen fiican sidii ay uga dhigi lahaayeen waqtiga u geliyeen oo aynu mahadnaqaynaa mahad celinta kadib haddii alla idma insha Allah waxaan doonaynaa maanta inaynu bal wax yar iskaga tilmaamno inaynu wax yar iskaga tilmaamno marxalad aynu in badan ku soo guda jirnay imikana intii ugu badnayd iska dhamaatay aynu gabagabadii ku sii socono ciwaankeeduna wuxuu noqonayaa how to be successful in governmental exam bal ardaydeena fasalka afraad ama galaaska 12aad ku jirta sidee baynu u gaari karnaa guul inta inaga dhimanna aynu dadaal u sii saari karnaa waqtina aynu u bixin karnaa inaynu dadaalkii aynu ku bilownay mid ka badan sii bixino kolleysaynu ka wada qabnaa waxa weeyaan arday kastoo halkan fadhiya waxa uu og yahay inaanay sahlanayn inaad imtixaan gasho waliba imtixaanadooda imtixaanon ma way kala duwan yihiin kii iskuulka iyo kan imika aynu galayna ee loo yaqaan Somaliland National Examination and Certificate Board waliba tan gelitaankeeda waxa la socda sidee baad guul u gaari kartaa qof kastoo halkan fadhiya wuxuu ka warqabaa ma og yahay inaanay wax fudud ahayn in imtixaan la galo waliba la baasaa waxaanay u baahan tahay waa halkii qolada tabliiqiinta waxay yiraahdaan dadaal iyo fikir dheeraad ah u baahan tahay waa run dadaal iyo fikir dheeraad ah ayuu baahan yahay markuu ardaygu soo gaaro fasalka 12aad ama form 4ka oo ku dhameynaya ama gabagabowaa heerkiisii aqooneed ee loo yaqaan fundamental educationka marar badanna waxa dhici karta inay arday badani ku guul dareystaan imtixaanka shahaadiga ah sababa fudud oo xal loo heli karo awgeed bay waliba u dhacaan ardaydaas hore waa loo soo dhici jiray still dhicitaankuna wax cusub ma uu soo noqnoqdaa imikana waxa laga yaabaa inay qaar badan dhacaan way dhici kartaa sababaha ay u dhacayaan waa wax xal loo heli karo saddex sababood ba ugu weyn ardayda dhicitaankooda marka la eego ama daraasad lagu sameeyay number 1 waa ardayda form 4ka oo aanay qaarkood aqooninba hab nidaamsan oo casharada ay dhiganayaan oo akhrisan lahayn qaar badan bay dhicitaankoodu sabab u noqotaa markuu form 4 soo galay ardaygu ma aqoonsanayo nidaam wanaagsan oo uu maro oo maalintuu bilowday form 4ka ilaa intuu ka dhameynayo uu raaco ayaanu garanayninba qolo labaad habtaa ka duwan bay imtixaanka u guul dareystaan ama ay u dhacaan habka labaadina wuxuu noqonayaa sabab u noqon kara waa ardayga oo aan fahansanayn nashqada iyo qaabka imtixaanka GC-ga formatka iskuulka la idinkaga qaado iyo formatka imtixaanka dawladda isku qaab ma way kala duwan yihiin arday baa guul daradooda iyo dhicitaankooda ama dhibcaha hoose imtixaanka keenan ay sabab u noqotaa inaanu fahansanayn bay structure-ka imtixaanka laga qaadi doono qaabku yahay hadhow marka la soo dhigana wax cusub ku noqotaa sababta saddexaadina waxa weeyaan waa taynugu badan ee arday badan ay ka dhigtaan qiilay koodhanayaan hebel oo xariif ah u dhacay ama siibuu keenay ama uu hoosiyay sababta ardaydaasi ay dhibcaha hoose u keenayaan ama qaarkood ay uba dhacaan iyagoo maca xariifiina waxa weeyaan waa walwal iyo cabsi iyo naxdin ardayga la soo dirista xaaladda imtixaanka marka uu gaaro ama imtixaanka uu galo saddexdaas ayaa ugu waaweyn oo sabab u noqotay inay arday badan natiijadii imtixaanka ay ku qanacsanaayeen ay keeni lahaayeen ama ay hore u keeni jireen inay keeni waayaan saddexdaa qodob inteen halka fadhiday imka mid kastaaba mid buu isleeyay malaaniyo adiga ta kuugu daran ee kuugu wacan ee haddaad dhibcaha hoose keentana aad iyada darteed u keeni kartaa waa taa ilaahay kama dhigay haddaad guul dareysatana sabab u noqon kara saddexdaa mid ka mid ah ayuunbaa imka inteen halkaa fadhida mid kasta niyadiisa ku jirta ima inuu ardaygu waxa weeyaan aanu still haysanin hab nidaamsan oo wax akhristaba qodobka labaad oo isna noqonaya still inaanu ardaygu wali fahansanayn ba imtixaanka GC-ga structure-kiisa qaabka uu ku imanayo kii iskuulka dib u ka duwanaanaya waayo imtixaanada iskuulka ku soo galeysay oo dhani boqolka waa la idin kala qaadi jiray content termka hore content ka dambe imika ma jira boqolkiiba hal mar baa deel la wada galaya
tastaxadna waxa weeyaan arday badan waxa haysata welwel cabsi iyo naxdin xilliga imtixaankana waxa laga yaabaa in isku dhex yaacaanba oo arday xariif oo taqaaneen un baa hadhow halkii ee laga sugay C oo niyo hebel maxaa helay de wax kale ma yeelina caqabadan baa qabsatay weeyaan haddaba arrimaha iyo qaar kale badan ayaa sabab u ah inay ardaydu dhibco fiican ay ku qancaan qaarkood keeni waayaan qaarna ay u dhacaanba waana sababta igu kaliftay inaynu barnaamijkan maanta isku nimaadno haddii ilaahay qadaro insha Allah bal wax badan aan xal u helnana waan isku yiraday doonaa ugu horeyn waxa tiin dhalinyaradii mustaqbalka one of the greatest asset mid kamid ah hantida ugu wanaagsan ee ugu weyn ee dalka Soomaaliland leeyahay oo idinka si haddaba taas laydin dareensiyo layna baraarujiyo inaad tiidin hantidii ugu fiicnayd wadanka kow waa in laydin maal gashada daatiin dhalinyaradii wadanka laba waa in laydin diyaariyaa mustaqbal fiican oo ku farxadaan saddex waxa haddaba loo marayaa sidii laydinku diyaarin lahaa mustaqbal fiican iyo in si fiican laydin maal geliyo dariiqyo kala duwan baa loo marayaa oo laydinku dhiirigelinayo dariiqyada kala duwan ee laydin marayo laydinku dhiirigelinayna waxa kow ka ah waa in dhiirigelin lagu sameeyaa maankiina iyo maskaxdiina iyo waliba in kor loo qaado heerkiina aqooneed wax ku baranaysa intaas ay dawladdu halgan u gashay diyaarna ay u tahay maadaama tiin hanti wadanku leeyahay